أقدم كتابا جاني الهداية. أبدأ بسم الله حديثه وسني يا خير البرايا. جود القرآن ورتل سورة سورة وآية آية، سورة سورة وآية آية. رمضان وفرصة قالية وقفك عبادة وهلاني وجعلي سنة يونك النحين. waxaa u baahan inaynu dib eegno sanadii hore iyo ramadaanadii hore inta dad inala joogay ee ehel leh, asxaab leh, macaariif leh. dad dib u tiriso waad yaabi, alaabta baad iska soo xidhxidhanoo adiguna ama inaguna kuyugaa baynu isu sii diyaarin doonaa, weliba ayaamahan dambe sida loo soconayay. waa cashar iyo cibro, wax lagu cibro qaatana geerida u mudan. qofka isag joogteen ama isku ag tukanayseen ama isku shir fadhideen ama isku xaafad ahaydeen, markuu libdhuu qarsoomaanu soo noqonayn, adigu maxaad sugaysaa? meeshii haddaba mudnayd ee laga sahay qaadanaya waa ramadaan. waxaa la sahay qaadanayaana waa camal ee daaraha iyo dunyada maaha. marka fursaddaa qiimaha badan ee qaaliga ah, fadligeediiyo waxa laga faa'iidayo baynu ku soo koobsan doonaa insha allahu 8 arrimood oo inagu filaan doona. arrinta u horeysa waxa weeye bishani waxay leedahay khusuusiyaad, waxyaabo dheeraada. bisha dhexdeeda insha allah haddaynu gaadho waynu ka sii warrami, laakiin ilaa 7 arrimood ayaa xadiidkani uu sheegaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xusay xadiidkan oo saxiixa dadka isagoo u bushaaraynaya, bishana tarxiibinayo soo dhaweynaya. wuxuu odhan jiray qad jaa'akum shahru ramadaan, waxaa idin yimi bishii ramadaan, shahrun mubaarak, waa bil barakaysan. marka ramadaan kariim iyo ramadaan mabruuk midna inaan la odhanayn baa xadiidka laga faa'iidaysanayaa, la odhanayaa ramadaanun mubaarak. nebigaa magacaa u bixiyey. mabruuk iyo mubaarak way kala duwayn. mabruuk waa waxa fadhiyaa la idhaah, laakiin mubaarak waa shaygii barakaysnaa. mubaarik bikasri raana maaha. bikasri raa haddii la akhriyo la idhaha mubaarik waa qofkii wax barakaynayay. marka waa bil barakaysan. kataba allahu calaykum siyaama, waa waxyaabahay dheeraadka la ti waa inay barakaysan tahay, waa in soomkeedu uu waajib yahay, oo bilaha kale taa way kaga duwan tahay. bilaha kale soomkoodu waa sunni. fiihi tuftaxu abwaabu ljanna, albaabadii jannadaa la furayaa in ka badan intii hore. wa tuqlaqu fiihi abwaabu ljaxiim, naaraha albaabadoodiina waa la xidhayaa. wa tuqallu fiihi maradatu shayaaiin, shayaadiintii madaxa adkaa dhibka inagu haya cibaadada inoo diidanaa dagaalka adkaana waa la xidhayaa. lilaahi fiihi leylatun khayru min 1000 shahr, ilaahay wuxuu habeenkan ummadda u dhexdhigay bishan u dhexdhigay habeen ka fadli badan 1000 bilood. man xurima khayraha faqad xurim. nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, bishan qofka laga calaf seejiya laga qadiyo ee loo diido ee loo qadarin khayrka ay leedahay faraha badan, kaasi waa calaf go-ay. marka arrimahaasoo dhan buu nebigu ku yaboohay calayhi salaatu wasalaam. marka intaasoo arrimood kol hadday bilihii kaga duwanta inaynu isha si gaara ugu haynaa oo inuu han weynaanaa wax weyn wey. qodobka labaad waa sababaha lagu dhaafo dembiyada. innagana waxay noogu darani waa dembigeenna, oo cid kaloon ilaahay ahayn oo inaga dhaafaysa aanay jirin. rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid waxa uu ku yiri saxiix muslim ku sugan: alsalawaatu alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun majtunibat alkabaa'ir. salaadaha shanta ah iyo labada jumce iyo labada ramadaan inta u dhexdhexaysa ilaahay wuu ku dhaafaa dembiga. macnaha ramadaantii hore wixii ka dambeeyey ilaahay tanuu inaga dhaafaya insha allahu tacaala. dembiyada waaweyn haddii laga durka buu nebigu yihi, dembiyada waaweyna waynu ka toobad keenayna. arrinta saddexaad ee bishani fadli ay leedahay si aynu ugu dhiiranayn u jeclaysanno waxaa ka mid ah inuu soomkii noqonayo ilaahay hortiisa mid inooga ergeeya. maalintaana aad baynu ugu baahannahay ilaahaynu hor taagannahay cid inooga ergeyso alla ergadeeda uu aqbalayo. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi xadiid saxiixa:
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صومك إيا قرآنك لبدا سبا أدونك وي الشفاعة قاضي وي إرجينيا إلهي بيوغي إرجينيا مالنت قيامة بدو لبا قاركي سود دودا يايو صومكي وحو لي إلهي وحن ودي ذي قفكا عنديسي إيا ربيتانكيس قرآنكي نوحو لي هاي ورددي بان ودي ذي هبينكي ورنبو آخرية يقول صوت شيدي رسولك وحو لي صلى الله عليه وسلم فيشفعان ولا جاي يرجع أقبليه عمل كاس صالحين وإلهي يقول توصلين ويقول دوانين مركو إنه يرجعيه إلهي بقى أقبليه إرجده وحلقوا يدي شو قال يوي عبادة يدا وحيلاذا ديراد والنبي الشريع عليه الصلاة والسلام الضماء كده دلع عنك كوانا عسومت قاروا إلهي وفي ذنيا ما لنتو أوليادي سجنة الجينيو نبي واحد يقول عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيحها جنة waxa ku yaala albaab la yiraahdo rayaan waxa ka gala kaliya dadka soomka caanka ku ah markay galaan ay ku dhamaadaan waa loo xiraa anagu si gaar ah u casuumay maadaama amalkoodu ahaa mid khaas ah oo si khaas oo iyaga Ilaahay uu isla ogaayeen cibaadadan fadligeeda waxa ka bida nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wassalaam أما أن نراهن وهباري رسولك يا ملك الجبريل با عدة بيشن كعرف قوله كفى إذا يسوي ده أما الباص ضرنا كلو كعله ملقوا نبي عليه الصلاة والسلام وحوشاقي أو كيري صدح جرب وآمين ديري نبي آمين ده آمين ده قفك رمضان وصاق الشين سومين أما النبي محمد مغلان كوسلين أما والد كيسيبا أنو سمفلين أيو لهاي ونار تجايو الله كفوجايو آمين النبي وأنا آمين بقول من لو يرجع ما هكاسي وإنكار قبه حديث كنا صحيح هبار ملاقي يمد نبي ماشي يسر عيننا هؤلاء ذاك بكجرت قف كاسنا وقف هلاك سماء الله ينقبيه له فضائل كبشن وحكم ذين وهي طريق عظيم إلى الجنة ووضد الله مرة جنة أصحابته رضوان الله عليهم الله كرر النقدة رسول كنا وحي ويدين شرين وحي وكان يا إلهي رال النقشيس أيكوه ليان أما جنة أيكوه ليان هنكودا وينا هل كلا جاب إنه وينا إنه وهم وينا الدنيا ذي رميه ذا يرير أصحاب أبي أمامة لورنشر رضي الله عنه وأرضاه يا رسولك سأل ويداوح قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة أنا هلا ربنا كويدينا يا عمل أنكو قال جنة بل ماذا عمل نوع عاصم كل جاوني ديب رسولك صلى الله عليه وسلم وصى جابيا وحول عليك بالصوم فإنه لا مثل له وحد كده داشا صوم كوحلا مدي بمتشريه أصحابي جابي وما الله يدعو وحوها لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل به الضيف أنت أوحي كدم بين مالن كيد قولي سدب لقوا ما أركي شرين معناه ذو حوي الدب موش دن شرين مارين ولا مسوا ملان شرين مركا مرتيوتي ما دمو يعني قدام مرتدي وحي لا ضاي إلا ما موصى وحلاك ريا ولا سوريا ديان مرتدي أسئلة شوقي صوم كيسو ودن شرو هبين وبوحكر سنشري دي وحو كبل لنقاضي وحو النبي عليه الصلاة والسلام ويديه وسجون أو شيء صوم كيف فرل كاية كيسنا على بعض النقرية صوم كوا كفارة للمخالفات ولحنث اليمين دارتا علوس مركا وأدانكو فلين كروايو وحيابها لقو فردامين أيو كم ديها صوم إلهي كل عافية قفك دارتا سورة البايدة إلهي وحكو حسين بحيار راشن إيار دار لحنو انت بهدوايو إلهي وحولي فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم حيابها هورها دي ويدان waxa ku dadaashaan kafaara gudka dhaartu inuu noqdo 3 maalmood oo qofku uu soomo dhaartiina waxa idinka salabaynayo idinka safaynaya oo Ilaahay idinkaga dhaafaya soomkaas baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadliga cibaadadan waxa kamida qofka ku dadaala annahu yakunu min as-siddiqiina wash-shuhadaa waxa uu kamid noqonayaa dadka ugu fadli badan adoomaha Ilaahay
kuwa runta badan iyo kuwa naftooda quudhay ee dagaalka gaalada ku shahiiday liiskaasunbuu ku jiraayo kuwaasunbuu la mid yahay bushaaro uu nebiguna siiyey waya calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay xadiidkuna waa saxiix camru bnu mura aljuhani allaha ka raali noqda ayaa wuxuu nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ninkaasi su-aal buu nebiga inoo weydiiyo waxa uu leeyahay ara'ayta in shahidtu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulu llah waxaad iga warantaa rasuul allah haddaan ilaahay qiro oo adiga aan qiro rabbi iyo rasuul haddaan qiro wa sallaytu salawaati alkhams shanta salaadoodna aan tukado wa addaytu zakaa wa sumtu ramadaan wa qumtu miman ana haddaan ku dadaalo arkaanu islaamkii towxiidkii salaadii sakadii soomkii iyo sarajooggii habeenkii ilaahay loo cibaadaysanay inta haddaan ku dadaalo bal anugu qoladeen ku jiraa dad badan baa fadli diintu ay u sheegtae dadka aan liiskooda ku darmaya aan ku yididiilanaya waa kuwe rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi min asidiiqiina waashuhadaa waxaad ka mid tahay dadkaa ilaahay qur-aanka ku sheegay cid la tamaniyo oo la jeclaado oo lagu yidiisho iyagu u fiican kuwa runta badan iyo kuwa shahaadada liiskooda ayaad raacaysaa ilaahay wuxu uhi waman yudic illaaha waalrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waالصaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa cid lala rafiiqana kuwaasa u wanaagsan buu lahay qofka ilaahay adeecee ka tala qaatee nafta aan ka tala qaadan dadkaasuu raacayaa jannada uu la gelayaa inahaasi waxay ka mid yihiin fadaa'ilka bisha inagu soo aadan ee inagu soo foolle aynu ilaahay ka filayno inaynu ka sugayno inuu ina gaadhsiiyo si nabada inagu gaadhsiiyo iyo caafimaad qab marka waxaa kaliya inala gudbani waxa weeyaan inaynu guntiga giijasano oo bishan si wanaagsan aynu u waajahno soomkeeda iyo qiyaamkeeda iyo cibaadada qaybaha kala duwan in lagu akhriyo oo lagu dadaalo oo ehelka iyo ummadana lagu abaabulo sidii khayrka ay uga faa'iidaysan lahaayeen waa fursad qiimo badan oo nafta lagu edbinayo caafimaadka ruuxda iyo jidhkuna uu ku jiro si ay u tamariso sanadka inta hadhay sahay wanaagsanna addoonku u helo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية يا الله اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين